siyaasiga Cabdi Haybe Maxamed oo ka mid ahaa hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo xaaskiisa Aamine Cabdilaahi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in guud ahaanba ka baxeen xisbiga wadani. Siyaasiga Cabdi Haybe Maxamed oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku sababeeyay ka bixitaankiisa waqtigan xisbiga mucaaradka ah ee wadani inuu aqbali waayay musharaxiin xildhibaan oo isagu keenay xisbiga. isagoo arrimahan ka hadlayna waxa uu yiri bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah xaaji Cabdi Haybe aw Maxamed kana mid ahaa hoggaanka xisbiga wadani oo in muddo ku soo jiray maanta laga bilaabo waxaan go'aansaday xisbiga wadani inaan ka baxo anigii islaantayduba meeshaan u guuri doono weli dib baan ka soo sheegi doonaa haddii la yiraahdo laakiin xisbigaasi waan kala faataxaysan xisbiga wadani waan maca salaameynaya iyadoo waxyaabihii ka dhacay xisbiga aanan imika waxba ka sheegahayn iyo sababtaan uga baxayba mar dambe waan ka sheekayn doonaa haddii la yiraahdo laakiin waxaan ku sii horeysiinaya inaan xisbiga ka baxay sida iyo maca salaam alaykum wadaniyo waa ka mid oo wixii aanu aan sharaxay oo dhan waa laga soo yiri xisbiga rag kulmiye ka tirsan ayaaba meesha soo dhex galay oo muxuu ahayn xisbiga laftiisa ku shaqaysanaya raba marka musharaxiinta aanu aan geeyey oo reerahan aanu geeyey waa laga wada tegey kowde marka hoggaankan meesha ka ahay haddaan abarkayga uga soconahayn waxaan ka qabanaya meesha calaa kulli xaal waxa weeyaan sheegay duuduub kala tagnay maca salaama. halkan maanta waxa aan ku qabanayaa aan ku duubayaa anigoo ah magacaygu Aamine Cabdilaahi Kaahin oo la yaqaan Aamine Kidmaster waxaan halkan ku duubayaa oo ka tirsanaa xisbiga wadani ahaana golaha dhexe oo kaarkiisii ka yahay kana tirsan ahaana teetalkayguna ahaa la taliyaha gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inaan maanta oo bishu tahay 18 bishii saddexaad waxaan halkan ku duubayaa inaan ka baxay xisbigii oo aanan ku jirin waxa la yaalo wixii aanu hayayna aan faraha ka qaaday waxa la yaalo wax wala sheeg wala duuduub waxaan ka sheegayaana ma jirto sidaasaan ku kala hawl yaraysanay waxaan oranaya iyo waxaan maanta halkan ka faahfaahinaya kalena ma jirto xisbigii waan ka baxay kumana jiro teetal wixii aan lahaana waan dhigay waa ka xisbiga golaha dhexe la taliyaha gudoomiyaha intiba waan ka baxay marka sida iyo nabadgeliyo reer wadani waxaan leeyahay waan idin jecelahay walaalahay baad tihiin wax inaga dhaxeeya ma jirto oo wanaag ahayni waynu kala faataxaysanay sideenu baynu dadkeena kala oo dhan aanu isku wadanahay laakiin xisbi ahaan ayaan ka baxay maanta intay ka bilaabanto kuma jiro shaqana kuma lihi wala sheeg wala duuduub sidaasaan ku kala hawl yaraysanay ilaahay nin walba dadkiisa ha u mooso.